ku soo dhowaada barnaamijka taariikhda islaamka qaybta koowaad. Sida Alle quraankiisa ku caddaynayo, Kacbada waxaa dhisay nebiga Alle ee Ibraahim iyo wiilkiisa nebiga Alle ee Ismaaciil calayhi salaam. Qisaduna waxay u dhacday sidaan. Nebiyullah Ibraahim asalkiisu wuxuu ka soo jeedaa dhulkan loo yaqaan Ciraaq. Magaalo yar oo saraan daanta galbeed ee webiga Furaat oo magaceeda la yidhaahdo Ara. Waa meel hadda ku aadan Kufa agteeda, waxaana jira looxaan dhulka laga soo faagay hadda oo laga helay warar faahfaahsan oo ku saabsan magaaladan iyo qoyska Ibraahim calayhi salaam iyo xaaladooda diineed intaba. Ibraahim calayhi salaam magaaladan waa ka hijrooday dhinaca magaalada kale ee Xaraan, kadibna dhulkan Falastiin, halkaas oo uu ka dhigtay saldhigga weyn ee dacwadiisa. Haddaba Ibraahim calayhi salaam wuxuu u bixi jiray safaro dacwo oo uu ku maray dhulka Falastiin oo dhan iyo meelo kale oo dunida ka mid ah. Safaradan mid ka mid a ayuu Ibraahim calayhi salaam ku tegay dhulka Masar, halkaas oo uu Fircoonkii Masar ka talinayay u degay shirqool ka dhan ah Ibraahim calayhi salaam iyo zawjadiisa sharafta badan ee Saara. Shirqoolkan oo ahaa isku day uu Fircoonkani isku dayay kufsi uu la damcay Saara oo ahayd mid la siiyey quruxdii adduunka nuskeed. Alle shirqoolkan waa ka badbaadiyey ayadoo Fircoon uu ka arkay Saaro mucjiso weyn oo uu darteed aqoonsaday xiriirka weyn ee Saara ay la leedahay Alle, uuna qirtay fadligeeda iyo sharafteeda, islamarkaana uu siiyey gabar shaqaale ah oo magaceeda la dhaho Haajara. Saarana ay dhankeeda u guurisay gabadhii ninkeeda nebiga Alle ee Ibraahim calayhi salaam. Ibraahim calayhi salaam wuxuu ku soo laabtay Falastiin asagoo Alle ka siiyey Haajara Ismaaciil. Haddaba dhalashada wiilkan wuxuu masayr ka keenay zawjada weyn ee Ibraahim calayhi salaam, waa Saare, inaysan ayadu dhali jirin darteed, ilaa ay Ibraahim calayhi salaam ku kalliftay inuu fogeeyo oo masaafuriyo Haajara iyo wiilkeeda yar Ismaaciil. Ibraahim calayhi salaam wuxuu la safray Haajara iyo wiilkeeda yar Ismaaciil ilaa uu kala soo galay dhulkan Xijaas, uuna dejiyey geed weyn hooskii oo ku yaal tog aan beero lahayn oo u dhow barxadda uu Alla u doortay inay noqoto beydkiisa sharafta leh ee xaramka, oo markaa ah dalcad kor u dheer oo daadadku ka maraan labada dhinac. Wuxuu dejiyey geed weyn hooskii oo ku beegan ceelka Samsamka meesha uu ku yaal korkeeda. Mana jirin markaa cid ku nool meeshaan, biyona ma lahayn. Wuxuuna ag dhigay dambiil ay ku jiraan xoogaa timira iyo sibraar biyo ah, waana iska tegey. Markuu wax yar ka dhaqaaqay ayuu gacmaha kor u qaaday asagoo Alle ka baryaya inuu keligii ku halleeyey, ugana tegey dadkaas meesha cidlada ah lagaga tegay, kagana baryay Alle inuu ka dhigo meel dadka qalbiga kaga taal oo ay isaga soo shubmaan, uuna ku irsaaqo dadka ku nool noocyada timirta si ay Alle ugu shukriyaan. Duco dheer oo Alle ku sheegay quraankiisa suurado badan sida suuradda Ibraahim dhammaadkeeda. Wuxuuna Ibraahim calayhi salaam isaga laabtay dhulkii Falastiin. Isla markiiba saadkii yaraa waa dhammaaday, halkaas oo Haajara iyo wiilkeeda Ismaaciil gaajoodeen kuna oomeen. Markaas Alle uu u soo fatahay isha macaan ee Samsamka. Naxariista iyo fadliga Alle taasoo u noqotay quud iyo wax ay gaajada ku moodaan. Qisadaana waa qiso dheer oo la wada yaqaan. Muddo kadib waxaa meeshii soo maray qabiilo Carbeed oo loo yaqaan Jurhamta labaad, oo markii hore mari jirtay togaan, hase ahaatee aan ku aqoon biyo iyo dad midna. Markay arkeen Haajara iyo wiilkeeda waxay uga idan qaateen inay la degaan halkaas oo Ismaaciil uu ku dhex barbaaray qabiiladan Carbeed, bartayna afkooda. Ibraahim calayhi salaam dhinaciisa wuxuu safaro badan ku soo aaday Maka si uu u kormeero duriyaddii uu meesha kaga tegay, inkastoo aan la aqoon inta goor uu kormeerkan Ibraahim calayhi salaam ku yimid. Haddana qur-aanku wuxuu sheegayaa laba ka mid a labadan safar. Kan hore intuu ku guda jiray ayuu Alle subxaanah riyo ku amray nebi Ibraahim calayhi salaam inuu gowraco wiilkiisa Ismaaciil, Alla u dhowaansho darteed. Arrintan oo ahayd imtixaan adag oo Alle ku marsiiyey Ibraahim calayhi salaam inuu wiilkiisa oo keligii ka haysto gowraco. Sidoo kale Ismaaciil inuu aabbihiis ka yeelay inuu fuliyo waxa Alle amrayo. Markay labadooduba Alle u hoggaansameen oo imtixaankii ku guulaysteen ayaa Alle ugu beddelay wan weyn. Laba safar oo kalena waxaa sheegaya xadiid ku yaal Saxiixulbukhaari in Ibraahim calayhi salaam uu yimid Ismaaciil oo maqan gurigiisa oo xaaskiisa waraystay oo ay dhib sheegatay.
markaa Ibraahim calayhi salaam ku yidhi waxaad ku dhahdaa iska badal kaabada guriga oo Ismaaciil yimid uuna gartay in ninka yimid uu aabbihii yahay uuna kula taliyey inuu xaaskan iska furo sidoo kale inuu Ibraahim mar kale soo laabtay sidoo kale Ismaaciil oo maqan oo uu waraystay xaaskiisa oo ay markaa Alle ammaantay oo khayr sheegatay markaa uu yidhi waxaad ku dhahdaa adkee kaabada guriga Ismaaciil gartay cidda timid inay aabbihii tahay uuna amrayo inuu xaaskiisaan xagsado safaradan uu Ibraahim calayhi salaam ku yimid kormeerka mid ka mida oo ah intii Ismaaciil barbaaray kadib ayuu la kulmay wiilkiisa Ismaaciil asagoo leebab qoranaya geed weyn oo Zamzamka u dhow hooskiisa markuu arkay Ismaaciil aabbihiis oo muddo dheer aysan is arag wuxuu salaamay salaan ay isku burureen waalid ilmihiisa aan muddo dheer arag iyo ilmo aan waalidkiis muddo dheer arag salaantood safarkan ayaa Alle amray nebigiisa Ibraahim calayhi salaam inuu dhiso masjidka Kacbada dalcadaas uu Alle doortay korkeeda markaasay bilaabeen dhismaha oo udubada u taageen markay dhammeeyeenna Alle subxaanahu wuxuu nebigiisa Ibraahim amray inuu dadka ugu yeero inay u soo xajiyaan Kacbadan la dhisay marka waxaa la yidhi Ibraahim calayhi salaam intuu buur dheer dhaladeed fuulay ayuu qayladiisa tan ugu dheer ku dhawaaqay wardadow Alle wuxuu idin saaray xaj ee u soo xajiya Kacbadiisa qayladan oo dunida daafaheeda gaadhay oo adduunkoo dhan laga maqlay marka maalintaa laga bilaabo ayuu dadku bilaabay inay u soo xajiyaan Kacbadan xaggeeda diinta Nebi Ibraahimna ay ku faaftay jasiiradda Carabta oo dhan iyo meelo ka baxsan intaba Ismaaciil markuu barbaaray hooyadii Haajarana ay dhimatay oo uu noqday nin caqli badan sharafna badan qabiilkii Carbeed ee Jurham waxay u guuriyeen gabadha uu dhalay Kaaba qabiilkooda Madaad ibn Camar waxaana Alle ka siiyey 12 wiil oo wada hana qaaday kulligoodna ay ka farcameen qabiilooyin tarmay halkaanina waa meesha ay ka bilowdeen Carabta loo yaqaan waladu Ismaaciil ama Cadnaaniyiin oo Nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka soo jeedo qabiilooyinkan markii hore waxay noloshoodu ku tiirsanayd ganacsiga laga keeno dalka Yaman sidoo kale dhulka Shaam iyo Masar markiise ay ballaarteen intooda badan waxay ku faafeen gudaha iyo hareera jasiiradda Carabta ayagoo isu beddelay xoolo dhaqato iyo reer guuraa raacaya hadba meeshii roob ku maro waxay kaloo dhiseen dawlado yaryar iyo maamulo dhaqso u baaba'ay kadibna taariikhdoodu waxay ku dhuntay mugdiga zabaanka gudaha Makka waxaa kaga haray faraca Qiidaar ibn Ismaaciil oo keli ah isaga ilmihiisu waxay salka dhigteen Makka oo ay isaga farcamayeen ilaa uu ka dhashay Cadnaan oo ah awowga 21aad ee silsiladda abtirsiga Nebiga calayhi salaatu wasalaam Cadnaankan ayaana Carabta Cadnaaniyiintu ka xafideen abtirsigooda waxaana jira xadiid daciif ah oo la yidhi Nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu abtirsado oo uu gaaro Cadnaan wuu ka istaagi jiray oo oran jiray nasab yaqaanadu been bay sheegeen haddaba intii Ismaaciil uu noolaa furaha Kacbada iyo maamulkeeduba waxay gacanta ugu jiray Ismaaciil calayhi salaam markuu dhintayna waxaa isaga dambeeyey 2 wiilashiisa ka mida oo kala ah Naabit kadibna Qiidaar markay dhinteenna maamulkii Kacbada waxaa la wareegay awowgood xagga hooyo waa Madaad ibnu Camar oo ah saan sheegnay Kaaba qabiilka qabiilada Jurham ee Makka degan kadibna maamulkii Kacbadu qabiilkan Jurham ayuu gacanta ugu jiray ayadoo faraca Ismaaciil calayhi salaam aysan waxba ku lahayn inkastoo ay ahaayeen dad la ixtiraamo inuu aabbahood Kacbada dhisay daraadeed sidaas ayaa haddaba qaaruumo badani ku gudbeen ilaa ay xumaatay taladii Jurham oo awooddoodii wiiqantay oo musuqmaasuq dhex galay markaa waxay bilaabeen inay boobaan hantidii Kacbada u taalay sidoo kale inay furtaan dadka wafdiga ah ee xajka gudanaya arrintan oo ah mid aad uga caraysiinaysay Cadnaaniyiinta faraca Ismaaciil sidaa darteed qabiilka Khusaaca oo ah qabiilo degta hareera Makka ayaa ka faa'iidaysatay xaaladdan haddaba ayagoo taageero ka haysta Cadnaaniyiinta ayay dagaal ku qaadeen Jurham si fudud bayna uga qixiyeen Makko ayagoo markaa la wareegay maamulka iyo awoodda Kacbada intaba wakhtiga Nebi Ismaaciil calayhi salaam Makko joogay waxaa lagu qiyaasaa inay ku aadan tahay 20 qarni ka hor taariikhda dhalashada Nebi Ciise tani waxay ka dhigaysaa muddada ay Jurham maamuleen Kacbada 21 qarni ugu yaraan muddada ay qabiilka Khusaaca maamulayeen Makko Carabta Cadnaaniyiintu maamulka Makka waxba kuma lahayn
hase yeeshee waxaa jiray xurmo diineed oo ay lahaayeen sida in ayaga looga dambeeyo qaar ka mida camallada gudashada xajka, sidoo kale inay dib u dhigi jireen bilaha xurmadda leh. Cadnaaniyiintuna waa faafeen deegaanka Maka, waxaa kaga soo haray lafaha Quraysh oo ah faraca Fihr ibn Maalik. laakiin maamulka waxba kuma lahayn ilaa uu ka soo baxay Qusay ibn Kilaab oo ah awowga shanaad ee abtirsiga nebiga oo uu Quraysh isku duway, mideeyey, isla markaana uu ku qabsaday Qusaaca maamulka Maka. kadibna arrintii dagaal ay isu badashay, dagaalkiina uu kaga gacan sareeyey. markuu Maka qabsaday wuxuu dhisay guri loo yaqaan Daarunaduwa oo ah baarlamaan yar oo Quraysh laga maamulo. howlaha Quraysheed col iyo nabadba qusaysay ayuu halkaa ku gorfayn jiray. dhammaan mas-uuliyaadka Kacbada iyo howlaha Quraysheed gacantiisa ayay ku jireen ilaa uu Maka ka dhigay sidii xukuumad yar oo kale. markuu dhintayna xeerarkii uu Qusay dejiyey waxay u raaci jireen sidii diintii. waxay haddaba Maka gacanta ugu jirtay Quraysh ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo saaray, sida aan arki doonno. halkaa ha inoo joogto maanta. isbuuca dambe la soco qaybta labaad insha Allah.